بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga qayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo halkani waa codka Soomaalida Finland SSM oo goorahan oo kale aad uga barateen in aanu idinka soo gudbino barta internetka wixii warar ku saabsan viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale maanta oo khamiis ah hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga dalkan Finland ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano THL ayaa shaaca ka qaaday in viruska corona laga helay 540 qof oo hor leh dalkan Finland. Tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ayaa noqonaysa 26,422 qof. Isku darka guud ilaa iyo 79 magaalo ayaa laga helay viruska. Waxa ugu badan meelaha viruska laga helay gobolkan Helsinki oo Uusimaa oo 308 qof laga helay. Kaalinta labaadna gobolka Varsinais-Suomi 48 qof. Kaalinta saddexaadna gobolka Päijät-Häme oo laga helay 41 qof. Magaalooyinka ugu badan ee laga helay viruska corona waxa ay kala yihiin sida tan Helsinki 175 qof, Vantaa 49 qof, Espoo 44 qof, Turku 30 qof, Lahti 30 qof, Oulu 24 qof, Karvia 12 qof, Tampere 9, Nurmijärvi 8, Jyväskylä 7, Kerava iyo Tuusula 5 qof ayaa laga helay. Kirkkonummi iyo Hollolana 4 qof. Pohjois-Savo gobolka la yiraahdo ayaa isna 5 qof laga helay, Hämeenlinna 5 qof, Kotka 5 qof, Kouvola 4 qof, gobolka Etelä-Pohjanmaa oo 5 qof laga helay, gobolka Etelä-Savo 10 qof, Rovaniemi 5 qof iyo Pohjois-Karjala oo 6 qof. Xanuunka viruska awgiis waxaa isbitaalka daryeel ahaan ugu jira 165 qof sida ay sheegtay hay'adda THL kuwaas oo 22 kamid ay ku jiraan qaybta xaaladda aadka u daran. waxaana isniintii kadib ku soo kordhay qaybtan 3 qof. Tirada dhimashada ayaa ilaa iyo haatan maraysa 408 qof. Iyadoo tallaalada iyo hawshooda ay haatan adduunka si aad uga socoto isla markaana toddobaadyada soo socda la arki doono tartan xoog leh oo ka dhaxeeya shirkadaha tallaalka iyo in dowladaha adduunka ay bilaabayaan ayaa haatan dowladda Finland waxa ay maanta sheegtay qorshaheeda barnaamijka tallaalka. Dhakhtarka sare ee ka tirsan hay'adda nolol wanaagga caafimaadka Taneli Puumalainen ayaa maanta sheegay in sida haatan u qorshaysan iyaga dadka ugu horeeya ee lagu bilaabi doono tallaalka ay yihiin dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. Shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo caafimaadka ayaa buu yiri dadka ugu horeeya maxaa yeelay haddii iyagu xanuunsadaan waxaa markaasi istaagaya shaqadii caafimaadka waana dadka la kulmaya ayuu yiri dadka qaba viruska corona. waxa uu sheegay in sidaa darteed ay muhiim tahay ayaga in lagu hormariyo waxaana sidaasi Puumalainen uu ka sheegay shir jaraa'id oo maanta si wada jir ay u qabteen hay'adda THL iyo wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada. waxa uu sheegay in marka la helo ogolaanshaha tallaalka Finland si dhaqso ah looga bilaabi doono tallaalka. waxa dadkaasi ku xiga ayuu yiri dadka waayeelka iyo dadka u nugul halista cudurrada oo iyagana bisha labaad ee February la tallaali doono waxaa markaasi inta dambana la siin doonaa tallaalka dhammaan dadweynaha reer Finland. Shirkaasi waxaa sidoo kale ka hadlay wasiirka arrimaha adeega asaaska iyo qoyska Krista Kiuru oo sheegtay in tallaalka markii la helo ogolaanshihiisa sida ugu dhaqsaha badan xitaa haddii bishan 12aad ay noqoto la bilaabi doono. waxa ay sheegtay in tallaalkaasi uu ahaan doono mid ku filan dadka oo dhan iyadoo shaaca ka qaaday in qof kasta oo ogol dowladda ay ka go'an tahay in tallaalkaas la siiyo isla markaana uu noqon doono mid lacag la'aan ah. wasiiradda waxa wax laga weydiiyay xafladaha ciida masiixiga iyo kuwa sanadka cusub ee soo socda iyo wixii laga yeeri lahaa safarada ay dadku xafladaha dartood u galaan. waxaana ay tiri wixii safara ee laga maarmaan ah waa suuragal in la aado laakiin waxaan dadweynaha kula talinayaa in wixii kale oo safara oo aan loo baahnayn ay iska daayaan isla markaana xafladahaasi ay qolo walba guriga ay degan tahay ay ku qaadato lana iska ilaaliyo isumaatinka maxaa yeelay arrinkaasi waa mid keeni kara in dhibaatadu ay sii kororto. waxaana ay sheegeen in ay ku xiran tahay in xanuunku hoos u dago hadba dadku sida ay ugu hoggaansamaan nidaamkii la soo dejiyay iyo xayiraadaha la soo rogay iyadoo loo baahan yahay bay dhahayn in qof walba dhinaciisa uu ka qaato si markaasi hawshu ay hori gasho. dhakhtar sare oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee Helsinki gobolka Uusimaa oo la yiraahdo Ville Pettila ayaa isaguna waxa uu sheegay in dadka u baahan daryeelka caafimaadka gaar ahaan qaybta xaaladda aadka u daran ay haatan aad u soo badanayaan waqtiyada daryeelka loo baahan yahay ay sii dheeraan doonaan. sidaa darteed ayuu wuxuu yiri walwal weyn ayaa wuxuu naga hayaa haatan
xaaladda ku saabsan xafladaha ciidda masiixiga iyo midda sanadka cusub ee dadku ay samayn doonaan. gobolka Turkuna sida wararka ay sheegayaan, gaar ahaan jariidad ka soo baxda gobolkaasi Turku ee la yiraahdo Turun Sanomat, waxaa laga helay xaaladihii ugu horeeyay ee cadeynaya in viruska corona uu mar labaad ku dhacay dad hore uu virusku ugu soo dhacay. waxaa magaaladaasi haatan la sheegaya, sida laga soo xigtay dhakhtarka la yiraahdo Jutta Peltoniemi, in Turkiga agagaarkeeda ilaa iyo xaalado 10 qof ka yar laga helay kuwaasi oo mar labaad virusku uu ku dhacay. waxaa haatan dhakhtarkaasi uu sheegay in Finland si aad loola socdo xaaladaha noocaas oo kale ah ee dadku ay laba mar ama uu ku dhici karo dadku laba mar viruska corona. arrintaasi waxaa markii ugu horeeyay la sheegay ama ay soo baxday in dadka laba goor uu ku dhici karo waxay ahayd bishii 8 kadib markii jariidada Helsinki Sanomat ay soo qortay nin deganaa ama ku noolaa magaalada Hong Kong oo 33 sano jir ah uu xanuunku mar kale ku dhacay. ninkaasi waxaa markii koowaad xanuunku uu ku dhacay bishii 3 ee Mars, mar labaadkiina waxaa laga helay bishii 8 isaga oo ku sii jeeda magaalada Hong Kong kana yimid dalkaasi Spain. sidoo kale magaalada la yiraahdo Reno ay ku taala dalkaasi Mareykanka ayaa 25 sano jir ku nool isna laga helay laba goor. waase markii ugu horeysay oo dalkan Finland lagu soo waramo in laba goor laga helay xanuunka hal qof. waxaana haatan muran badan uu ka taagan yahay in xanuunada noocan oo kale ah sida viruska corona ee caabuqa ah ee ku dhaca hawamareenka markii qofka uu ku dhaco jirka ay siinayaan difaaca jirka, laakiin waxaa muran uu ka taagan yahay difaacaasi jirka imisuu soconaya, iyadoo ay khubarada ku xildheer arrimaha virusyadu ay qaarba meel ku tilmaameen, halka qaar ay yiraahdeen haddii xanuunku qofka si khafiifa ugu dhaco waxaa difaaca jirku uu jiri karaa muddo bil ah, haddii kalena waxa uu jiri karaa 3 ilaa 4 bilood. iyadoo xaaladda Finland ee viruska corona haatan ay ka soo darayso ayaa gobolka Etelä-Savo waxaa la sheegay in haatan lagu soo rogay xadeymo hor leh, iyadoo dhammaanba kulamada la qabanqaabinayo guda iyo dibadba lagu soo xadeeyay 20 qof inaanay ka badan karin. waxaana arrinkaasi uu dhaqan galayaa laga bilaabo Jimcaha beritaha 4 bishan 12 isagoo socon doona ilaa iyo 1 bisha Janaayo ee 2021. gobolka Labi ayaa sidoo kale waaxda caafimaadka ee gobolkaasi isagana waxaa la diiday in dadku aanay ku kulmi karin 10 qof wixii ka badan dhammaanba munaasabadaha la isugu yimaado guda iyo dibadba. waxaana arrinkaasi uu socon doonaa 7 bisha 12 ilaa iyo 21 bishan 12. isbitaalka ku yaala Tampere ee Rovaniemi la yiraahdo ayaa la sheegay in qayb ka mid ah isbitaalkaasi bukaankii jiifay iyo dadkii shaqaalaha ahaa laga helay viruska corona. waxaana arrinkaasi la sheegay in faafista cudurka halkaasi ka dhacda haatan ay gaartay ilaa iyo 7 qof, sidaana waxaa sheegay maamulka magaalada Tampere. dadka xanuunsaday ee bukaanada ayaa 3 qof ah iyo 4 qof oo shaqaalaha ah. waxaa kaloo wararku ay tilmaamayaan in 3 kale oo bukaanka ka mid ah iyaguna ay xanuunka u nuglaadeen islamarkaana haatan baaritaan loo diray. dalka Jarmalka wararka ka imanaya ayaa waxa ay sheegayaan in xukuumadda dalkaasi ay haatan go'aan ku gaartay in xaaladda cudurkan safmarka ee awgiis xadeyntii la soo rogay la sii dheereeyo lana gaarsiin doono ilaa iyo 10 bisha Janaayo. haweeneyda mas'uulka ka ah dalkaasi Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa la sheegay in arrinkan ay kala hadashay maamulada madax goboleedyada dalkaasi Jarmalku uu ka kooban yahay. awal waxaa hore loo sheegay in xadeyntu ay ka ekaan doonto 20 bisha 12, hase yeeshee haatan waa la dheereeyay. waxaana weli sii xirnaan doona maqaaxiyaha iyo hoteelada. dadka isu imaatinkoodana waxaa lagu xadeeyay dalka Jarmalka inaanay 5 qof ka badan karin. 5taas qof oo ka kala imaan karta 2 guri oo kala duwan. ilaa iyo haatan waxaa la sheegay in dalkaasi Jarmalka laga helay xanuunka 24 saac la soo dhaafay 22,046 qof, iyadoo dhimashaduna ay ahayd 479. labaduba waa tiro aad u badan sida ay sheegeen maamulka dalkaasi Jarmalka. wararka ka imanaya dalka Mareykanka ayaa iyaguna waxa ay shaaca ka qaadayaan in maalintii shalay ahayd dadka isbitaalada ku jira ama xanuunka awgeys daryeel caafimaad u baahan 100,000 oo qof inay kor u dhaafeen, taasi oo tiro aad u badan sida uu sheegay macadka dabagala arrimaha viruska corona ee loo yaqaano COVID Tracking Project. macadkaasi u kuurgala arrimaha viruska corona ayaa sheegay in maalintii shalay ahayd qaybta xaaladda aadka u daran ee isbitaalada ay ku jireen dad tiradoodu ay gaarayso 19,400.
waxaana la sheegay in haatan dadkaasi ay maalinba maalinka ka dambaysa ay aada usii kordhayaan. mishiinada dhinaca neefta loo isticmaalo ayaa maalintii shalay ahayd dadka u baahan waxa ay kor u dhaafayeen ilaa iyo 7,000 oo qof. magaalada Los Angeles ee ka tirsan dalkaasi Mareykanka ayaa iyaduna waxaa la sheegay haatan in dadweynaha lagu booriyay in ay guryahooda ku jiraan xaaladda viruska corona ee magaaladaasi oo aada usoo xumaatay awgeed. waxaana amarkaasi u noqonayaa mid lagama maarmaan ah, qof kastana laga rabo in uu fuliyo. waxaa arrinkaasi uu khuseeyaa qof kasta oo ku nool magaaladaasi Los Angeles islamarkaana aan wax muhiima u baahnayn, taasoo la sheegay in loo baahan yahay dadku inay ka fogaadaan isu imaatinka islamarkaana aan guryaha laga soo bixin. waxaa la ogol yahay keliya oo sharcigu uusan qabanaynin arrimaha diiniga iyo banaanbaxyada. dukaamada waa ay furnaan karaan haddii ay raacayaan arrimaha howladeennada wasaaradda caafimaadka ka soo baxa. viruska corona waxa uu la tegay oo haatan u dhintay madaxweynihii hore ee dalkaasi Faransiiska ee xukumi jiray 1974 ilaa 1980 odayga loo yaqaano Valéry Giscard d'Estaing. waxaana la sheegay in haatan uu u dhintay xanuunka maanta isagoo da'diisu ay tahay 94 jir. dhowr goor ayaa isbitaalka la dhigay kadib markii uu ku dhacay ama uu qabay xanuuno dhinaca wadnaha ah oo dhibaatooyin ay ka haysteen, hase yeeshee haatan viruska corona uu la tegay islamarkaana sababtiisa awgeed uu u dhintay. dalka Sweden waxaa lagu soo waramayaa in 35 qof oo horle ay xanuunka viruska corona awgis u dhinteen, iyada oo dadka uu ku dhacay 24 saac ee lasoo dhaafana tiradoodu ay gaarayso 7,007 qof. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Stephen Loven ayaa sheegay in laga bilaabo toddobaadka soo socda dhammaanba ardayda dugsiyada sare ee wadankaasi Sweden waxbarashadooda loo wareejin doono dhinaca internetka. waxaana uu sheegay ujeedadu inay tahay in la khafiifiyo ama la yareeyo dhibaatada viruska corona. Mr. Loven waxa uu sheegay in arrinku uusan ahayn fasax inay galeen, laakiin macnaheedu uu yahay in ay waxbarashada ay wadi doonaan. sida ay caddaysay hay-adda caafimaadka iyo nolol wadaagga ee dalkaasi Sweden oo ninka madaxda ka uu sheegay ardayda dugsiyada sare ayaa waxay ahaayeen dadka ugu badan ee faafista virusku ay si aad ay uga socoto ama uga dhex socoto. dalka Ruushkana waxaa la sheegayaa in tiradii ugu badnayd tan iyo intii soo martay viruska corona 24 saac ee lasoo dhaafay dalkaasi Ruushka laga helay, iyadoo maalin ka dambaysa Ruushka ay sii badanayso ayaa 25,345 qof oo horle laga helay viruska corona. dhimashaduna waxa ahayd 589. tirada guud ayaa maraysa 2.3 milyan. waxaana dalkaasi laga bilaabi doonaa maalinta Sabtida ee soo socota sida uu cadeeyay duqa magaalada Moscow dhammaan goobo kala duwan oo magaaladaas ku yaala tallaalka looga hortagayo viruska corona. dadka ugu horeeya la tallaali doono ayuu ku sheegay inay yihiin macallimiinta, shaqaalaha socialka, dhakhaatiirta iyo dadka iyagu jiidda hore ee la dagaalanka viruska corona ku jira. dhegeystayaal, wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen SSM intaa ayaan maanta kusoo koobaynaa. tan iyo kulanteena dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaasi iyo nabadgelyo iyo dardaarankii ahaa qof walba ha u hoggaansamo nidaamka la soo dejiyay iyo xadaynta si aan uga hortagno viruska corona. daryeel naftaada, tan dadkaada iyo tan ehelkaaga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.